ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa garoonka Khakatoob ee magaalada Linköping ee dalkani Sweden ay ku dhaxmartay labada kooxood ee kala matala xaafadaha Berga iyo Khakatoob ee magaalada Linköping waxaana tartankan koobka kubadda cagta ee lagu maamuusay bisha ciidda soo agaasimay iskuna soo dubariday ururada dulqaad IKU iyo CC Group oo ka howlgala magaalada Linköping. ciyaartan koobka lagu tartamayay ee dhaxmartay labadan kooxood ayaa aad u soo jiidatay indhaha daawadayaasha ciyaarta iyadoo labada kooxoodba waa Khakatoob iyo Berga ay soo bandhigeen ciyaar wanaag iyo xeel dheeri gaar ah oo midba midda kale ay guulo orod iyo kufaakac ugu jirtay in ay shabaqa goolka kale ay ku kaydsato tiro goolal ah balse ugu dambeyntii ayaa waxa ay ciyaarta ay ku soo idlaatay 3-5 oo ay guusha ay ku raacday kooxda xaafadda Khakatoob. tababaraha kooxda kubadda cagta Soomaalida Khakatoob Cabdirasaaq Boorshaani kabtanka kooxda iyo ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara kooxdan ciyaaryahan Cawaale ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin hanashada koobka ciidda ee sanadkan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ka bacdi waxaan salaamayaa dhalinyarada oo koob ku guuleysatay sida kooxda marka sanad walba waan qabanaa koobkan waan ku guuleysanay insha Allah sanad walba ciid walba waan ku guuleysanaa mar walba haddana waxaan ugu rajaynayaa Soomaalida sidaan oo kale inay muujiyaan ayagana ay dhalinyarada mashquuliyaan. waxaan ku faraxsanahay guushan maanta aan gaarnay anigoo ah dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dhalinyarta inay tababarkooda iyo dhalinyarta Khakatoob waxaan leeyahay dadaal intaan ka badan ka rajaynaa ma aha koobka koowaad kii labaad ma aha kii saddexaad ma aha waxaan ku guuleysanay koobab kale oo ilaa gobollo kale taa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحسنا ما أنت كوب على وقت مقالة لينشوبين خاصة حافظة Khakatoob ما دام أنا هاي كفتك حافظة Khakatoob أنا كقول سنة كوب كان هذا أنا فرحسنا هاي كان سلامينا دمان Soomaalida كنا مقالة لينشوبين هي Soomaalida أو ملك كنا وحن عادوا مع تعليننا جودك سوق قابي كوب كا waan ku faraxsanahay inaan koobkan ka soo qayb galno. sidoo kale waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah madaxdii guddiga ciyaarahan Maxamed Isaaq Wanjeelow iyo Xaamud Shire oo madax ka ah ururada soo qaban qaabiyay koobkan iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Laba Qoys oo ka mid ahaa guddidii koobkan. كل كوب كان مانت كوب ما هن سمينه عيد بدنا هرو سميني عيدنا وح مهد جوني أن أجدينا دتك نقلا قيب قاتي ومسؤولين تنلجوا إلى مانت إلى عيارت أنت ساعتي إلى عيارت كذا ما نسي كمدي هين حامد يا عبد الرحمن جامع أنا كو هلا مجا كوحدة أما مجا دلقات وأنصار أنصار qaban qaabinay koobka ina qabano waan ku guuleysanay waxa markasta nala taagan ama markasta nala taagan telefishinka Somali Channel halka maanta waxaan ku sameynay ciyaartii ciidda kubadda cagta oo waxa ka soo qayb galay reer Linköping si fiican ayay u dhacday kubaddan marka waxaan rajaynaynaa ciidda labaad insha Allah saan oo kale inaan halkan ku ciyaarno kooxo badan insha Allah qaban qaabiyaasha waxay rajeynayaan in sidaan oo kale ciyaartan u dhacday inay mar kale aan ciid soo socoto aan sameeyno magacay waa Cabdiraxmaan Jaamac Muuse aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah koobkan aan ka soo qayb galnay oo loogu talagalay maalinta ciidda barakaysan labada kooxood ee isugu yimidna maaragtay aad iyo aad ciyaar wanaag ayay muujiyeen waana ku faraxsanahay qof kasto ama dad kasto oo ka soo qayb galay in maaragtay ka soo qayb galka ka soo qayb gasheen anoo ku hadlaya magaca qaban qaabada iyo maaragtay dadka maaragtay odayaasha ah waxaan aad salaan maaragtay u dirayaa dhammaan dadka muslimiinta oo degan meel kasta gaar ahaan reer Linköping waxaan jecelnahay kulanka xiga insha Allah inay dhammaan maaragtay dhammaan ka soo qayb galaan kooxo badan insha Allah jecelnahay insha Allah isku soo wada duubo ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Berga ee laga badiyay ayaa bilado lagu guddoonsiiyay goobta halka kooxda kubadda cagta ee Khakatoobna halkaasi iyana la isugu daray bilado iyo koobkii ay hanteen. waxaana taageerayaashii kooxda kubadda cagta xaafadda Khakatoob iyo kooxda qudheedaba ay garoonka ay ku soo bandhigeen farxad iyo damaashaad ka turjumaya guusha ay gaareen. Cabdirasaaq Bulqaas Somali Channel magaalada Linköping Sweden.